The name of my story is Qayb Libaax, the Lion's Share. Sheekoy sheeko, maalin cad oo cawo iyo ayaan leh waxay u ahayd bahalaha hilibka cuna oo wada jir uga ugaarsaday ayda jiqda ah ama duurduurka hawdka Soomaaliyeed. Goor galab ah ayay heleen tulud geel ah oo gool ah. Bahalihii horarka ahaa waxay wada weerareen neefkii geel ahaa. Inta ay cayrsadeen oo ay hareereeyeen bay kala hareen geela intiisii kale. Markaas ayay qabteen oo disheen. Kadib raqdii neefka ayay u jiiteen geed qudhac ama aqab damal ah oo togga ku dhex yaala harkiisii. Raqdii bay isku soo wareejiyeen oo wada dul joogsadeen iyada oo mid kasta oo ka mid ahi si sabir badan ku sugayay in uu cantuugo ama rudhmo uga helo hilibka. Inkasta oo gaajo haysay, bahalna kuma dhiiran in uu hilibka far saaro ama taabto. Inta libaaxa oggolaansho laga helayo, aarkii baa reemay oo bulbusha ama giirka kiciyey si uu ugu digo oo u cabsi geliyo bahalaha intooda kale. Dhammaan waa ay wada hogteen iyaga oo aamusan oo wada shib ah. Libaaxii wuxuu u yeeray dhurwaagii waraabayaasha ugu da'weynaa oo ku amray, adigu Cali Lugyare, ka tali sida ugu wanaagsan oo aad hilibka ugu qaybin lahayd bahalaha habardugaaga. Dhurwaagii baa hore u soo dhaqaaqay. Intuu wax yar fekeray ayuu yidhi, haahey boqorkaygiiyow ukuliyow. Markaas ayuu hadalkii ka hakaday oo haddana hadalkii sii watay, hasha ma bar mise bar? Bar boqorkaa leh. Waa xabeeb tirtay oo yidhi, bar aan inteena kale si xaq ah u qaybsanno. Aarkii laxaadka lahaa ayaa intuu ku abraaray dhurwaagii waayeelka ahaa dhabannaano wejiga kaga jiiday. Markaas ayaa ishii goonka ka soo booday. Waraabihii baa ciil iyo ceeb la luuday. Intii waraabayaal kale goobtaas joogtayna waa wada daba kaceen oo isagii raaceen. Libaaxii baa inta uu mar kale reemay ayuu yidhi, waa u jeedaan waraabihii Cali Lugyare in uu kasi waayey sida ugu wanaagsanayd oo uu hilibka inoogu qaybin lahaa. Inta uu indhaha caddeeyey oo galka ka soo saaray ayuu bahalihii isha wada mariyey. Markaas ayuu ugu dambayntii dawacadii u gacan haadiyey, adiga dayo marwo dawaco, bal aan ku eegno in aad waraabaha doqonka ah ku dhaantid qaybinta hilibka. Dawacadii baa iyada oo cabsanaysa soo gurguuratay oo fiirisay bahalihii oo baqdin la luudaya. Waxay eegtay boqorkii oo hoos u tiri, waa hagaag, hasha ma bar mise bar? Bar libaaxaa leh. Boqorkeenna buruudka weyn, barka kale. Libaaxii baa si xun u fiiriyey oo hadalkii ka hakiyey.
laakiin dawacadii degdeg bay hadalkii u sii wadatay barka kale ma waax mise waax boqorkeenna mudan baa leh waaxda kale ma fallar mise fallar boqorkaa leh fallarka kale ma rimic mise rimic boqorkeenna aynu wada jecelnahay baa iska leh 8 dalool oo kale ma 16 meelood mise 16 meel dawacadii oo aan oraahdii dhammayn ayaa libaaxii qosolka wadhay markaas bay bahalihii dhammaantood qosolkii ku wada dareen iyaga oo isaga ku raali gelinaya jabka 16aad anigaa iska leh libaaxii oo hadalkii sii wata ayaa yidhi waa amakaag iyo layaab yaa dayoy adiga qaybinta hilibka sidaa habboon kuu baray dawacadii inta ay ilka caddaysay ayay boqorkii u soo jeensatay oo ku jawaabtay boqorow waxaan kuwaana qaatay oo casharka ka bartay isha dhafoorka cali ka laadlaada dhammaan habar dugaag iyaga oo wada guuxaya oo hoos u wada gurxamaya waxay garteen waxa dhab ahaan qayb libaax macnaheedu yahay libaaxii baa godkiisii u jiitay tuluddii geela qaybtii weynayd oo uu ka qaatay inkasta oo ay bahalahaasu ka wada howlgaleen ugaarsigii neefka geela ahaa haddana bahalaha intoodii kale waa ka qadeen oo waxay kala boobeen feentii lafaha iyo hambadii libaaxa ka hartay bahalihii waxa ay la luudeen ciil iyo urugo oo ku kala baaheen aydii iyaga oo ku heesaya qayb libaax garano gar iyo daw maaha qayb libaax garano gar iyo daw maaha qayb libaax garano gar iyo daw maaha